Salaamullaahi calaykum. Soo dhawaada dhalinyaro. Maanta waxaan jeclaystay in soo gudbiyo filim horor ah laguna magacaabo Alive. Intiinaan guda gelin muuqaalka waad ku mahadsantihiin saa subscribe iyo like nagu dhiirigelinaysaan. Fadlan haddaad ku cusub tahay channelka dhiirigelinteedu waa noo muhiim. Filimkuna waxa uu ku bilaabanayaa John Yoo. Waxay u ahayd maalin cusub. Waxaanu ka soo kacay jiifka. Wuxuu isku diyaarinayay quraacda. Waxa uu furay bashqad fariin ah hooyadii uga tagtay. Waxay noo sheegtay inay xilli hore ka baxeen guriga. Sidoo kale ay gabaabsi tahay cuntada guriga taala, iyadoona u sheegtay inuu soo adeego. Waxa uu ku laabtay qolkiisa waxaana isku diyaarinayay inuu ciyaaro game, balse wuxuu maqlay war ka soo yeedhay bannaanka, kaasi oo sheegaya inuu fayras ku faafay magaalka. Waxaan oo dhan waxa uu malaynayay been, balse waxa uu indhihiisa ku arkay dadku isku beddelay zombie, isagoona midka kale uu ku faafinayo fayraska. Fowdo ayaa ka taagan magaalada, halka uu John waxaan oo dhan kala socday daaqadda sare ee gurigiisa, isaga oo weli xaaladda xagga sare kala socda. Waxaa hal mar qaylo ka yeedhay albaabka gurigiisa, waxaana u soo dhaqaaqay si uu u ogaado waxa qaylinaya. Waxa uu ka fiirinayay daloolka albaabka, balse cidna uma jeedo. Waxa uu furay albaabka, waxaana si lama filaan ugu soo booday nin dhaawac ka soo gaadhay bannaanka. Waxa uu weydiisanayay inuu isticmaali karo musqushiisa. John waa uu u fasaxay isticmaalka musqusha, balse intii uu ninku musqusha ku jiray John waxa uu fiirsanayay TV-ga. Waxa uuna ogaaday inuu fayraska faafin karo qof la qaniinay. Waxa uu isku dayay inuu iska difaaco ninkan dhaawacan, isagoona ku guulaystay inuu bannaanka guriga u tuuro. Waxa uu adkaysanayay albaabada guriga. Waxa uu go'aansaday inuu waco hooyadii si uu ugu yeedho guriga, balse kuma uusan guulaysan wicitaankaas. Wax yar kadib waxa uu soo dhacday fariin uga timid hooyadii, iyadoona u sheegaysa xaalka bannaanka iyo in aanay guriga iman karin. Sidoo kale uu isku filnaysiyay cuntada yarta ee guriga ku hadhay. Waxa uu bilaabay inuu cuntadii kala qaybiyo. Waa maalin kale waxa uu rabay inuu hooyadii waco balse kuma guulaysan mar kale. John waxa uu telefoonkiisa ku xidhay drone si uu u ogaado inta zombie ee ku xayndaaban gurigiisa. Wax yar markii ay hawada heehaabaysay, waxa uu ogaaday in dabka moobilkiisu yahay gabaabsi. Taasina waxa ay ku sababtay inuu xanaaqo, waxaana ku laabtay qolkiisa si uu iskaga ciyaaro game. Balse wax yar kadib waxaa go'day korontada guriga. Cadho kale kadib waxa uu go'aansaday inuu iska seexdo. Cabaar markii uu hurdo waxa uu maqlayay waxaan ka soo yeedhaya bannaanka guriga, waxaana u baxay dhanka iyo daaqadda si uu u fiiriyo waxa dhacaya. Waxa uu dusha kala socday markii gabadh ciidan ah ay isku dayeysay inay iska difaacdo zombiyada, balse ugu dambeyn ay ku guuldareysatay. Zombiyaduna waxa ay bilaabeen inay cunaan gabadha. Mar kale waxaa bannaanka albaabka ka soo yeedhay qaylo kale, waxa uuna isku dayay inuu isdifaaco. Waxa uu arkayay nin zombie ah oo isku dayaya inuu albaabka soo jiiro, qasabna ku soo galo guriga. Waxa uu ogaaday in aanu haysan waddo kale oo aan ka ahayn inuu iska dhigo wax daaqadda iska tuuraya, isagoona ku dhaqaaqay arrinta. Waxa uu ku dhuumanayay daaqadda hoosteeda, halka uu zombigu si dhaqso ah iskaga tuuray daaqadda. 7 cisho ayaa ka soo wareegatay faafitaankii cudurka. Waxa uu isku diyaarinayay quraacda isagoona TV-ga ka maqlayay inuu cudurku saameeyay bilaayiin qof. Maalmuhuna waa ay socdaan, halka uu cudurku galay maalinkiisii 10aad. Waxa uu weli dariishadda qolkiisa kala socdaa xaalka dhulka. Markan cudurku waa uu 15 jirsaday. John waxa uu bilaabay inuu muusig daarto halka uu niyeysanayay hooyadii iyo aabihiis oo ku soo laabtay guriga, halka ay hooyadii weydiinaysay inuu wax cunay iyo in kale. Waxa uu isku dayay inuu waco hooyadii, balse signalka ayaa mar kale u shaqayn waayay. Waxaanu bilaabay inuu fuulo bannaanka daaqadda, halka ay zombiyadii oo dhan ku soo goobteen hoostiisa. Waxa uu u soo baxay bannaanka isagoona weerarayay zombiyada. Wax yar kadib zombiyadu waxa ay bilaabeen inay ku goobtaan isaga, iyagoona kaga yimid labada jiho. Waxa uu bilaabay inuu ka dhuunto zombiyada. Cudurkuna waxa uu galay maalinkii 20aad. Dabaqa dhan waxa uu bilaabay inuu gariiro. Waxa uu fiiriyay daaqadda waxaana ogaaday inuu qarax ka dhacay bannaanka, kaas oo sababay gariirka dabaqa iyo sidoo kale inay korontadu tagto. Waxa uu bilaabay inuu muuqaal kale iska duubo, isagoona leh noloshu aad ayay u adag tahay, xaalkuna waa mid ka sii daraya maalinba maalinta ka dambeysa. Waxaanu go'aansaday inuu isdaldalo, balse waa uu isbedelay markii uu arkay laysar tilmaam ah oo u soo galaya qolkiisa. Waxa uu eegay goobta uu laysarku ka imanayo, waxaana ogaaday in qofka badbaadisay ay tahay gabadha. Waxaanu bilaabay inuu u gacan haadiyo, waxayna u sheegtay in 7 saac subaxnimo uu soo istaago dariishadda. Waxa uu ku laabtay qolkiisa isagoo dhoola caddaynaya. Tani waa Kim Yoo. Tanina waxa ay u ahayd dareen kale oo cusub. Maalinkii xigtay, John waxa uu ku daahay hurdada, taasoo sababtay inuu ka daaho waqtigii ballanta. Waxaanu u cararay xaggii dariishadda laakiin ma uusan arkin gabadhii. Cabaar kadib waa ay timid goobtii.
John waxa uu bilaabay inuu ka cudur daarto inuu kasoo daahay waqtigii ballanta, waxaanay bilaabeen inay isbartaan iyaguna isweydaarsaday magacyadooda. Mar kale waxa ay ballameen 7 saac habeenimo. Markii la gaadhay 7 saac habeenimo, John waxa uu muujinayay dareen gaajo ah, waxayna bilowday inay u soo dirto xoogaa cunto ah, iyadoona u soo raacisay xadhig. Balse cuntadu ma aysan gaadhin John. Taa beddelkeeda waxaa xadhigga qabsaday nin zombie ah, waxaanu bilaabay inuu xadhigga kor u soo raaco, isagoona ku sii jeeda dabaqa Kimio, halka ay qolka John isku hareerayeen zombiyo kale. Kimio waxay bilowday inay isdifaacdo, iyadoona gacanta ka goysay zombigii isku dayay inuu soo galo qolkeeda. John waxa uu arkay inay sahaydiisu tahay gabaabsi, waxaanu go'aansaday inuu bannaanka u baxo si uu u soo raadsado sahay kale. Soo bixitaankiisii bannaanka kadib, waxa uu ku guulaystay inuu soo qaato xoogaa sahay ah. Waxa uu fiirinayay maro la saaray qof dhintay. Waxaa si kedis ah u soo weeraray zombi kale, waxaanu ku guulaystay inuu isku badbaadiyo meydkii uu hadda fiirinayay. Waxaanu goobta kala baxsaday naftiisa. Waxa uu ku laabtay qolkiisii, waxaanu cunto u diray Kimio, waxaana ay bilaabeen inay wada hadlaan. Waxaanu uga mahadcelinayay inay badbaadisay naftiisa. Intii ay wada hadlayeen waxa ay ogaadeen inay zombiyadu aad ugu soo dhowaadeen, waxaanay bilaabeen inay dhulka jiftaan si aanay u arag iyaga. Balse shanqadh ka soo yeedhay qolka Kimio waxay sababtay inay zombiyadoo dhan u jeedsadaan dhanka qolkeeda. Intii aysan gaadhin albaabka Kimio, waxaa yeedhay shanqadh kale, waxaanay u wada yaaceen halka codku ka yeedhay. Halka John iyo Kimio ay bilaabeen inay neeftuuraan, waxayna isku diyaarinayeen inay ka soo baxaan qolalkooda si ay u raadsadaan waddo kale oo ay kaga baxsadaan zombiyada. Waxayna u soo baxeen bannaanka, halka ay zombiyadu kolkiiba soo weerareen iyaga, balse waa iska difaaceen iyagoona midba midka kale caawinaya inta uu awoodo. Rafaad badan kadib waxaa soo badbaadiyay nin, waxaana ku soo dhoweeyay gurigiisa isagoona u keenay biyo. Balse Kimio waxay indhaha ku haysaa ninka, iyadoona aan si buuxda ugu kalsoonayn. Waxaana u sheegay inay cabbaan biyaha, waxaana u bilaabay cabitaanka. Wada cuntayn kadib, John waa uu suuxay. Tanina waxay ahayd qorshaha ninka, waxaanu ka xidhay gacmaha. Sidoo kale Kimio iyana cabbaar kadib waa ay suuxday, waxaana u jiiday qol ay ku jirto xaaskiisii oo isku beddeshay zombie, waxaanu ku qufulay qolkii. Kimio waa ay argagaxday markii ay aragtay in gabadh zombie ay ku sugan tahay qolka, halka uu John ka soo laabtay suuxdinta isagoona qori ku hayay ninkii si uu u badbaadiyo Kimio. Ninkiina waxa uu bilaabay inuu xadhigga ka sii daayo xaaskiisii zombiga noqotay. Waxa ay weeraraysay Kimio. Wax yar kadib, waxay istaagtay shanqadhii qolka. Ninkiina waxa uu ka shakiyay inay dhimatay xaaskiisii, waxaanu si dhaqso ah u furay albaabka, waxaana si dhaqso ah u soo weerartay xaaskiisii iyadoona qaniintay. Kimio waxa ay bilowday inay rasaasayso, halka zombiyadii bannaanka joogay oo dhan ay u soo yaaceen dhankooda. John iyo Kimio waxay arkeen helikabtar duulaya dushooda, waxaanay u soo yaaceen xagga sare si ay caawin u weydiistaan, halka ay zombiyada oo dhani ku goobteen iyaga, wayna ka baxsanayeen iyagoona iska difaacaya ilaa ay ka gaadheen xagga sare ee dabaqa iyagoona u qaylinaya helikabtarada. Balse cidna ma maqal iyaga. Dhammaan zombiyadu waxay ku jihaysnaayeen dhankooda si ay u cunaan, waxayna isku dayeen inay isdifaacaan. Waxa ka dhammaatay rasaastii, waxayna ka qusteen nafahooda. Balse waxaa badbaadiyay dadkii saarnaa helikabtarada iyagoona laayay tiro badan oo zombiye ah, halka ay ka badbaadiyeen Kimio iyo John. Filimkuna halkaas ayuu ku soo dhammaaday. Fadlan haddii aad nala soo gaadhay halkan waad ku mahadsan tahay. Hana hilmaamin inaad channelka subscribe tiraahdo, sidoo kale like muuqaalka si uu gaadho dad badan oo adigoo kale ah.